السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي إذا سيتهين ساعة كهر channelka العربية اللي يراهدو بخبر كان صوب دكتي ووحي شيكتي وحي جت جروب ملتريا أو مريكن كمارنزيكا I think جوجا مقعد اللي يقانو دلتا الأمريكية وحي كسو دكتي فلسطين تا مستعمر كا وما أنت اللي يقانو إسرائيل مركا وحي أصود درتي ملتريجاس ودلتا اللي يقانو سيدي dadkii la afduubtay oo yuhuudda ahaa ina laga soo saaro Gaza. طبعا khabarka waxa ku qoran groupkaas hadda ka hor idab waxa baray afka ka garaacay Soomaaliya 90yadii markay Soomaaliya isku raadsatay waa groupkii la soo dilay waxa laga dilay ilaa 18 qof ka badan waa groupada adag oo Mareykanka ah oo adduunka oo dhan xataa hadda ka hor waxyaalo badan baa loogu diray muhiimad caalamiya way ku soo guuleysatay waxa kamid ahaa for example inay hadda ka hor soo qabatay ninka Daesh mas'uulka ka ahaa dhinaca Iraq oo loo yaqaanay Baghdadi iyo hadda ka hor inay xataa soo qabatay ninka Iraq xukumi jiray Saddam Hussein iyo xataa dad kale oo kamid yihiin mid oo caalamiyo drugsiga ka mas'uulka ah Mareykan oo dhan South iyo North keeda oo la oran jiray El Chapo من زمان baa la qabtay ninkaas qisadiisa meel baa hadda ka hor ka akhriyay marka hadda halkaas ay maraysaa arinta groupkaas oo hadda ka hor ku fashilmay Soomaaliya oo meelo kale laakiin ku guuleystay ina loo wada Gaza sida loo xireeyo labadii xabbi Yuhuudka ah oo la haystay طبعا shakhsiyada muhiim ay Gaza heer Gaza soo qabteen ama Xamaas waxa kamid ah wasiirka gaashaandhigga gabadhiisa oo askariyad iyo wiil ninkan hadda xukuma Israel Netanyahu wiilu adeer u yahay walaalkiis runta oo dhalay iyo dad badan oo shakhsiyada caalami oo muhiim ah hadda ka hor basaasiin wax ahaa oo qaar xataa waxa laga yaabaa duqshin ama odayaal inay yihiin laakiin kuwa dhalinyarada ku jirta marka hawsha la socda